waxay u tababaran yihiin wanaag qalbiyadooduna waxay jecel yihiin khayrka waxaanay la mid yihiin dahabka bulshada dhexdeedana waxay ku leeyihiin saameyn weyn oo ballaaran oon oran karo taariikh waarta ayay mudan yihiin nagu filan waxaan u yeedhnay martidayada maanta weliba aan ku qaabilnay mid ka mid ah iskuullada ardayda laakiin waxa dhacay way ka duwan yihiin waxaa jira Oscarada ku dhajiya kana buugaagta السلام عليكم. mid ka mid ah ardayda la soo geliyo halkaas sii fariiso intaan gudaha ka soo noqonayo. ardayda soo daaya Oscarada ku dhajiya xayeysiiska haddaba ogeysiis dhammaanba ardayda waxaa la ogeysiinayaa inay iska soo xaadiriyaan barxadda iskuulka sidaan rabno inaan ugu mahad celinno marwo sheekha umu axmed oo maanta marti noo ah umu axmed waa macallimad dhinacna barbaariso ka ah cilmi oo keliya namaysiin waxayna siisay barbaarin iyo wanaag walba iyo jeceyl aan shuruud lahayn ardaydeeduna aad ayay ugu xiiso qabaan iyada xasuusteeduna kama tagto arday walba qalbigiisa ku jirta marwo sheekha mar walba waa macalin ni dhiirigeliya saaxiibna la ah ardayda sidoo kalena hooyo ah iyadu markay waxna bari jirtay marna namay dareensiin inay macalin kaliya tahay inay hooyo kale noo tahayna wayna dareensiin jirtay iyadu waxay ahayd macalimada wax u dhigta carruurta baahiyaha gaarka leh iyadu macalimada kaliya ma ahayn marwo sheekha iyadu booska hooyanimo nuugu jirtay waxay wax ku bartaa jacayl iyadu markay maxadka wax ka dhigaysayna dadkoo dhan way hogaaminaysay oo arrimaheeda ayaa lagu raacaa weliba arrimaha wanaagsan dad badani waxay u maleeyaan hooyo guriga markay joogto inay ka duwan tahay sida ay tahay laakiin may kama duwana sida ay bannaanka ugu naxariis badan tahay si ka weyn ayay gurigana ugu naxariis badan tahay waxay noola dhaqantay si kastoo wanaagsan iyo wax walba yacni wanaagayada ku jiray qof ixtiraam la bay ahayd iyo wax walba macalin sheekha anaga waxayna bari jirtay maadooyinka ah historyga iyo juqraafiga maadada iyaduna baraysana xiise u yeeli jirtay sawir bay wax nagu fahansiin jirtay sida maababka iyo xariiqyada iyo waxyaabaha dhulka mara si aan u fahanno oo macluumaadkana aan u baranno weliba sidaasoo khaas ahayd ardayda aan indhaha lahayna ay wax ku baran karaan waxay ahayd mid samir badan oo u dulqaadata gaabiskayaga iyada ilaahay hibo wuxuu u siiyey oo ugu deeqay inay ardayda indhaha la ay wax ku fahansiiso weliba iyadoo qalbigooda gaadhsiinaysa
xitaa duruufteeda gaar ah iyadu way awoodi jirtay inayna caawiso mar walba. yacni wax nagu caawin jirtay wax kastoo annaga nagu adag, wax kastoo adag. ardayda aragga naafada ka ah waxay ku fahansiin jirtay dareen iyo dulqaad iyo inay xurufta taabsiiso. iyadu waa hooyaday, runtii waa hooyaday. iyadu macalimadoo keliya noo maaha, iyadu wayna soo barbaarisay, waxayna na soo bartay wixii saxan iyo wixii khaldan. haatan anigu waxaan noqday macallin wasaaradda tarbiyadda iyo tacliimta. shakina ma leh in ay horumarkayga kaalin weyn ka soo qaadatay iyadu, xeerkaana ay soo gaarsiisay iyadoon cidna abaal ka sugayn. annagana tarbiyadda wanaagsan ayay hooyaday nagu soo ababisay. waxay nagu tiraahdaa wax kastoo aad bixin karaysaan ee qof ku caawin karaysaan siiya. macalimadeennii wanaagsanayday mar walbana waan ku faanayaa oo waan ku faraxsanahay inaad adigu gacantaada wax igu soo bartay. qof wanaagsan baad tahay, qofka ku bartaana waa qof nasiib badan. waxaa tahay mar walba macalimadeennii. hooyo macaan, adigu waxaa tahay tusaalahayga iyo qofka aan mar walba hiigsado. waxaana tahay qof noloshayda saameyn weyn ku sameeyey oo si fiican aniga ii soo koriyey, wanaag badanna i baray. hooyo ilaahay ha ku daayo, mar walbana sidaa hooyo u faraxsanow oo wanaagga u samee. marwa shiikha aad baan kuugu xiisay, sanado badan baanan ku arkin ilaa ay markaan ka baxay maxadka. aad baan kuugu xiisay si weyn weliba. waxaan kaa baryayaa inaan ku arko anigu. aniga layaab bay igu noqotay, manaan filay kadiskan oo kale. weliba waa kadis qurux badan inaan hadalladan oo kale aan ka maqlo ardadaydii. uguma yeedho ardadaydii, waxaan idhaahdaa caruurtaydii. iyagu waa qayb aniga igu qaaliya. aniga dadku markay weydiiyaan maxaad qabataa, waxaan ugu jawaaba waqtigayga waxaan la qaataa caruur baariya oo aan waxbaraa. maantana markaan arkay iyagoo hadallada wanaagsani leh, dareenkaygu run ahaantii wuu isbedelay. hadalladooduna way i saameeyeen. iyaga inaan waxbarno waxaa nagu caawisay Baxrayn. wax walbaan u baahnayna iyadaa nala garab istaagtay. wanaag oo dhan bay u qalantaa. marwa sheekha adigu waad istaahishaa. umu axmed waad nagu filan tahay. adigu waxaa tahay tusaalahayga. waa qof wanaagsan, qalbi weyn oo naxariis leh. waa hooyo, waa barbaariso, waa mucallimad. umu axmed waa qof ku dayasho mudan, waxayna dalkan Baxrayn ku leedahay kaalin mug leh. taariikhduna way xusi doontaa. waxaan leeyahay umu axmed adiga ayaa nagu filan.